maayarka degmada berbera cabdishakuur cidiye sidoo kale xogayaha degmada ayaa si weyn u soo dhaweeyey farxiye axmed cadaawe oo ah fanaanad weyn oo laga yaqaano geyga Soomaalida. ugu horeyn haddaba soo dhaweyntaasi waxaa ka hadlay xogayaha oo sheegay ka berbera ahaan inay si weyn u soo dhaweynayaan. caawa runtii farxad weyn bay noo tahay haddaan nahay maamulkii gobolka degmada berbera inaan halkan kusoo dhaweyno fanaaniinteena aanu jeclayn ay horumar ka tahay Fatxi Fiska oo markii ugu horeysay Soomaaliland timid berberna ay markii ugu horeysay tahay runtii ay ku soo dhawaan kulanay berbera iyo dalkaagii iyo dadkaagii iyo waxa kale soo dhaweynaynaa saxardiid iyo ikraan ayagoo halkan maraya iyo maxay tahay awaaninta iyo fanaaniinta kale la socda runtii sharaf weyn bay noo tahay mar labaad inkastoo waqti dambe tahay laakiin inaanu idinku soo dhaweynay magaaladii berbera iyo xeebtii Batalaale iyo baradii jacaylka waxaan leenahay soo dhawaada. maayarka magaalada berbera ayaa isaguna sheegay ka gole deegaan ahaan iyo ka berbera ahaanba inay soo dhaweeyaan farxiya. runtii waxa farxad weyn oo ah inay caawan noo joogaan fanaaniintii qaranka oo runtii aan aad iyo aad aan heesaha aad u jeclayn haddana markaan dhageysto aan magaranaysaa dareen gaar ay ku leeyihiin ikraan caraale iyo farxiye fiska waxyaalaha runtii aan aad u jeclahay aniga qalbigayga wax isbedelka badan ku sameeya waxaa ka mid ah marka aad u heysaan qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku leenahay marti kumatida ku soo dhawo gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera iyo taariikhdeeda cidna looga sheekeyn maayo farxiyana looga sheekeyn maayo waxaan jeclahay inaad ku nasato inaad ku soo dhawaato gacmo fara ku soo dhawaato in heesiyo hore qaranka u qaasiyo kuwa kasii wanaagsan aad u qaado maalmana aad ku nagaato si aad u dareemaysid dadka reer Soomaaliya ay ku jecel yihiin si aad noo jeceshiin inay ku jecel yihiin marka waxaan ku leenahay ku soo dhawow dalka oo dhan ku goosh saxardiina waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay caawas malaa 3 darajo leedahay awal darajo kaliya ku haynay. booqashada farxiya ee magaalada berbera ku timi ayaa waxaa ku wehelinayay fanaaniinta saxardiid maxamed saxardiid ikraan caraale mokanen fanaanada faadumo. waxaa halkan lagu soo dhaweeyay maayarka magaalada iyo xoghayaha madaxda magaalada iyo shacabka berbera gebigood waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. dhanka kale iyaduna halkaasi waxaa ka hadashay farxiye axmed cadaawe oo ah fanaanad weyn oo geyga Soomaalida laga yaqaano isla markaana uga mahad celisay maayarka iyo xogayahaba. Assalaamu calaykum horta haddaan Farxiye Fiska ahay aadan ugu faraxsanaa Soomaaliland inaan imaado Hargeysan ka bilaabay sheeqan ku xijiyay hadda alxamdulillah waxaan joogaa berbera oo weligii aan maqli jiray gudaheedii is beautiful aad iyo aad u qurux badan tahay. waxaan leeyahay maayarkeena Cabdishakuur iyo xogayaha aad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen insha Allah haduu Ilaahay idmo waa idinkaga mahad celinayna anagoo dhan oo fanaaniin iyo isugu wada daran abwaaniin cid walba waxaan idin leenahay thank you very much aad u mahadsantihiin insha Allah haduu Ilaahay idmo berbera aad u qurux badan tahay inaan ka tagi doono uma maleeymaayo ani horta